beri aan jaamacad dhigan jiray jaamacadda waxaan isku galaaseen wiil buuran oo cadaan ah anigana waxaan ahaa wiil Soomaali ah oo caate wiilkan buuran ee cadaanka dadkii cadaanka aan isku galaaseen kulligood lama heli jirin way takoorjeen waa nin buuran buu ahaa aniga iyo wiilka cadaanka ayaa saaxiibo ahaan jirnay waayo aniga xitaa ilama heli jirin waa wayla takoorjeen saaxiib ayaan saas ku ahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا حيرة إنك وحن كل اللي كعصنا هنا سبسكرايب لايك شير إتاوتين maanta waxaan ka hadlaynaa arrimo ku saabsan xaaladda muslimiinta dalka Denmark. Dalka Denmark waxaa ku nool 256,000 oo muslimiin ah. Muslimiintaas ay Soomaali ka mid yihiin. Sanadkii 1880 ayaa lagu sheegay muslimiintii ugu horeysay Denmark. Muslimiinta ay ku tilmaami jireen Muhammadiyna, macnaheedu ah dad raacsan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Madaahibta ugu horeysay Denmark oo muslimiinta waxaa la aasaasay 1950 waxaana aasaaseen niman muslimiin ah oo ka yimaadeen dalka Pakistan waxay dhiseen masaajid iyo madaahib sanadihii u dhaxeeyay 1966 iyo ilaa 1967 waa masaajidkii ugu horeeyay laga dhiso dalkan Denmark masaajidka oo magaciisa ahaa Nusrat Jahan Mosque oo ilaa maanta ku yaalo magaalada Idoo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم maanta Denmark waxaa ku yaalaan 170 masaajidood masaajidada oo badankood aan muuqanin oo u eg sida guryaha caadiga ah qofka qurbaha jooga waxyaalaha ugu horeysay uu u xiisaayo waxaa ka mid ah aadaankii la aadaami jiray dalkeeni meeshan aadaan kama jiro dalkan Denmark sharci kama jiro oo sheegaya inuu aadaanka mamnuuc yahay laakiin dawladaha badan ee soo mareen dalkan dhowr jeer ay isku dayeen inay ka soo saaraan sharci oo mamnuucayo aadaanka takoorida inaayibka dadka muslimiinta oo ku nool dalalka reer galbeedka waa wax aad iyo aad uga sii daray kadib sanadkii 2001 waliba 11 September 2001 markii la qarxiyay laba dabaq ee ku yaalaan magaalada New York ee dalka Mareykanka bilowgii qarniga Denmark isbedel badan ayaa ku yimid ummadda Danishka waxay doorteen xisbiya ku dhaatay inay adkeeyaan shuruucda ajaanibta waliba ajaanibta ka yimaadeen dalalka muslimiinta waxyaalihii ugu waaweynaa ay dawladdan ballanqaaday oo lagu soo doortay waxaa ka mid ah in ay adkeeyaan sharciga socdaalka in Denmark aan iska soo gelin oo la yareeyo isu keenida reeraha qaxootiga iyo in laga fiirsado in Denmark ay yimaadaan dad aan Denmark dhaqan iyo diin la wadaagin erigaas ilaa maanta wali way socotaa doodii muslimiinta waxaa jiraan xisbiyaal oo xagjir ah oo soo jeediyaan fikrada walwaalan fikrada oo ka mid ah in muslimiinta ay xijaab ku xiran goobaha shaqada iyo fikrada ka mid ah in la mamnuuco in muslimiinta ay gudaan wiilashooda laakiin midna kumay guuleysan maadaama xisbiyaashii waaweynaa ay ka diideen ilaa maanta laba wax ayaa la soo bandhigay baarlamaanka mid waxaa weeye in la mamnuuco niqaabka iyo in mamnuuc laga dhigo gudinka wiilasha Denmark oo markaa ku socotay inay noqoto dalkii ugu horeeyay adduunka oo mamnuuco gudinka wiilasha dadka muslimiinta oo Denmark jooga oo niqaab xirto waa dad tiradooda u dhaxeeyo 150 ilaa 200 qof ayadoo saas ayaa niqaabka si fudud lagu mamnuucay dawladda waxay daliil ka dhigatay in ay muhiim tahay in qofka wajigiisa la arko oo la aqoonsan karo beri aan jaamacad dhigan jiray jaamacadda waxaan isku galaaseen wiil buuran oo cadaan ah anigana waxaan ahaa wiil Soomaali ah oo caate wiilkan buuran ee cadaanka dadkii cadaanka aan isku galaaseen kulligood lama heli jirin way takoorjeen waa nin buuran buu ahaa aniga iyo wiilka cadaanka ayaa saaxiibo ahaan jirnay waayo aniga xitaa ilama heli jirin waa wayla takoorjeen saaxiib ayaan saas ku ahan sheekada waxay ku socotaa arrinta gudinka oo arrinta labaad oo la soo bandhigay baarlamaanka in la mamnuuco Denmark waxaa ku nool dad Yahuud ah oo Denmark yimid 400 sano ka hor qaarkood dalka way ku milmeen qaar way dhaqankooda ay haystaan sidii aniga iyo wiilkii cadaanka oo aan dan iyo duruuf ku saaxiibnay anagoona waxba naga dhaxin oo aan kala nahay gaal iyo muslim
yahuudda iyo muslimiinta waxyaalo badan ay wadaagaan. waxaa ka mid ah gudinka wiilasha iyo xoolaha oo si xalaal ah loo qalo. God aften, Mette Frederiksen. Det her har været en svær sag for mange partier, tydeligvis. Hvorfor har du nu besluttet, at Socialdemokratiet ikke går ind for at forbyde religiøs omskæring af drenge? Det har jeg, fordi vi i Danmark gav et løfte til jøderne i årene efter 2. verdenskrig om, at vi ville beskytte dem i al fremtid. waxaasi waa ra-iisul wasaaraha Denmark, Mette Frederiksen. waxaa la weydiiyey maxaad u mamnuuci waysay gudinka wiilasha. waxay ku jawaabtay waxaan ballan qaadnay dagaalkii dunida labaad kadib in dadka yahuudda aan badbaadino maanta iyo mustaqbalkaba. Mette Frederiksen oo qiratay in ayada shakhsiyan ay ka soo horjeedo gudinka ayna og tahay in 86% ee dadka Daanishka ay ka soo horjeedaan laakiin ay mamnuuci karin gudinka sabab waxay dhaawacaysaa dadka yahuudda. muslimiinta Denmark oo u bartay in waxyaalo badan la mamnuuco oo arrintan ka gaabsadeen ayaa Ilaahay u soo bixiyay niman yahuud ah. muslimiintii halkaas ayay ku badbaadeen. waxaan idinka iloobay sharci kale oo loo beegsaday muslimiinta. waa sharciga salaanta. sharciga oo dhigayo in maalinta aad qaadanayso baasaboorka Daanishka inaad xaflad ka qayb qaadato. xafladdaas oo laga rabo in qofka aqoonsiga siinayo aqoonsiga dhalashada aad gacanta geliso, gacanta aad ku salaanto. kollayba qofkii fahmaya fahansanaya sharciga inuu yahay sharci loo beegsaday dumarka muslimiinta. sharcigaas oo la ansixiyay sanadkii 2018 oo maantana Ilaahay amarkiisa corona ka daba yimid. waxyaalaha la yaabka waxaa weeye dadkii hadda niqaab ay wada qabaan, wajiga waa xiran yahay, lasma salaamo. marka wixii ay ka mamnuuceen muslimiinta ayaa maanta Ilaahay sharci ka dhigaba. laga bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2015 Denmark waxaa hogaamin jireen xisbiya xagjir ah. xisbiyada xagjirka weligood kama noqon ra-iisul wasaaraha Denmark, laakiin waxay ahaan jireen xisbiyada ay xisbiyaasha dhexdhexaadka ku taagsadaan la'aantood waxba lama samayn jirin maadaama ay xisbiyaasha dhexdhexaadka ay haysan codad ku filan. xisbiga oo aad iyo aad saameyn u lahaa Denmark laga bilaabo sanadkii 2000 waa xisbiga la dhaho Danske Folkeparti. waa xisbiga uu hogaamiyo maanta ninka sawirka midabka jiro oo magaciisa ah Kristian Thulesen Dahl oo mar walba dowladda ku xujeyn jiray in la adkeeyo shuruucda socdaalka ama shuruucda ajaanibta. haddii kale Kristian Thulesen Dahl wuxuu dowladda u hanjabi jiray inuu u codeynin. taas darteed dowladda way ku qasbaneed maadaama ay haysan tiro buuxda. naagta dhexda ku jirto magaceeda waxaa la dhahaa Pernille Vermund. waa naag cusub oo ku guuleystay doorashada Denmark ka dhacday sanadkii 2019 bishii 7. xisbigeeda baarlamaanka waxaa ka soo galeen 4 xubin. xisbigeeda waa xisbi ka daran kii hadda aan ka sheekeynayo. xisbigeeda waa xisbi ayagan rabo inay u sameeyaan shuruuc cusub dadka islaamka ku nool Denmark. ninka ugu dambeeya oo bidixda jiro magaciisa waxaa weeye Rasmus Paludan. ninkaasna waa nin aad iyo aad xagjir u ah oo ka daran labadan kale. Rasmus kuma guuleysan doorashadii la soo dhaafay 2019 xubin kama helin baarlamaanka. waa nin hadduu ku guuleysan lahaa oo ballan qaaday in muslimiintu dhan laga masaafurinayo Denmark. Rasmus waa ninka Denmark oo dhan ku wareego oo kitaabka Quraanka gubo. We respect the law, we respect Denmark, we respect the law, but I want to give you a lesson about, and you give me a lesson also, but you are not a man who face another one. Come here, we will talk. I don't have anything. No. I don't have pistol, I don't have a knife. I have my opinion. I have my belief. I have the Quran. You don't have anything. You have only your reclama. You have only how to make attraction. You are good to go to make a film. Ali Aga, you need to allow me to respond as well. Otherwise, we can't have a... Rasmus maalinlewed xitaa waxaa laga soo celiyay dalka Sweden oo lagu yiri ka noqo dalkan ma soo galaysid. dadku dhan way la socdaan baan u maleeyaa wixii ka dhacay Malmö, magaalada Malmö maalinlewed. halkaas ay joogeen kooxdiisi laakiin isaga loo diiday inuu dalka soo galo. waa Hire Inc. waxaan idin rajeynayaa khamiis wanaagsan. waxaan rajeynayaa inaad barnaamij ka hesheen. waa inoo mar kale iyo barnaamij kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.